My name is Marian and I saw the president today. Today is a happy day because the president was in the beach. I'm very happy because I saw him. kaliya ma ahayn halkan inuu madaxweynuhu u yimid inuu arko sida dadku ay ugu soo nasiino tagaan xeebtan Lido laakiin waxa ku jirta inuu dhageysto aragtida dad badan oo aan fursad u helin inay madaxweynaha mar uun arkaan ama ay la kulmaan qaarkood waxa ay la galayeen sawirro iyagu ku farxsan dhalinyarada ku ciyaara kubadda xeebtan Lido laftirkoodu waxa ay heleen waqti uu madaxweynuhu la ciyaaro dhinaca kale madaxweynuhu waxa uu la shaahay dad u badan dhalinyaro waa kuwan qaarkood oo nala hadlay maanta farxad weyn ayay tahay inaan madaxweynahayga ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Maxamed farmaajo aan maanta shaahigan uu koob ku cabo anna koob ku xiga aan ku cabo run ahaantii ma ogeyn maanta inuu imaanayo meeshan ama u soo booqanayo aad aan ugu faraxsanahay maanta inuu imaado sidoo kale wuxuu maanta u sameeyay bulshada midmid u gacan qaaday anigana markii ugu horeysay ee madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka aan salaam weyn noqotay galabta anigoo fadhiyo xeebta Lido waxa farxad ii ah inaan kula kulmo madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo wallahi waxa ii tahay dareen aan cabiri karin inaan maanta madaxweynaha kula qaatay waxa madaxweynaha Jamhuuriyadda Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu kala hadlay dadkii uu kala kulmay xeebtan Lido in Soomaalidu tahay dad mid ah oo aan kala go'i karin isagoo siyaasiyiintana kula dardaarmay inay la yimaadaan tanaasul badan si midnimada dalkan loo ilaasho waxaana uu tusaale u soo qaatay go'aankii uu qaatay xilligii uu ra'iisul wasaaraha ahaa ee uu ka tanaasulay xilkaas xaqiiqda hadee Soomaali meel joogtada wuu fadhiyo dalkaana ma kala go'ay caalamku ma rabaa inay kala go'o Soomaali kala go'o dadka rasmiga marka la weydiiyo ma rabaa inay kala go'o marka waxaan u baahanyahay siyaasiyiin oo anigu aan Soomaaliya ugu horeeyay inaan bilaawno wada hadal oo ka shaqeyno sidii dadka isugu soo dhaweyn lahaa wada hadal loo fuliyo si kaas loo helo anigu diyaar waxaan u ahay inaan bilaabo wada hadal dhab sababtan wax alla wax ku qadci karaan inta haday tahay inaan aan fikir ku waayay waxa iga muhiimsan midnimada Soomaaliya marka waxaan rabaa siyaasiyiinta inay ka tanaasuli karaan jagada hayaan hada aniga barnaamijna waa tanaasul hadana waa ikra shalay marka ka baxay meesha dad baa waxay lahaayeen waxa uga baxaysaa meesha ku dhimo waa dhaqanka la yaqaan moofta waxay ahayd galab ka mid ah galbaha uu madaxweynuhu la kulmo bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan galbaha uu booqdo goobaha ay ku caawiyaan oo ay ku nastaan Ali Baasha Cabdullaahi warbaahinta qaranka magaalada